wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed iyo mas'uuliyiin ka tirsan madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Ugaasnuur Airport ee magaalada Dhuusamareeb garoonka oo ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya bulshada qaybaheeda kala gedisan ciidamada booliiska qaybtooda Baanbayda madax ka tirsan maamulka Galmudug ayaa si diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaana saxaafadda ugu horeyn la hadlay wasiirka koobaad ee maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana uu sheegay inay si hufan ugu soo dhaweynayaan caasimada maamulka ee Galmudug waxaan soo dhaweynay halkan ku soo dhaweynay gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Thaabit isagoo ka soo qayb galay munaasabad weyn ee ka dhici doonta caasimadan aan joogno ee Galmudug taasoo lagu midaynayo labadii maamul oo ka jirtay gobolada dhexe iyadoo beesha caalamku ay imaanayso barina una soo gaari doona Ilaahay idankii madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shalana ayna soo gaareen iyo daraad xildhibaano federaalka iyo senatarada Soomaaliya ah labada aqal ka kooban maantana ay yimaadeen gudoomiyuhuna hadda uu soo gaaray ana ku soo dhaweynay aeroboorka caalamiga ah ee magaalada Dhuusamareeb waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa munaasabadan qiimaha badan leh Ilaahay inuu noogu kamilo si wanaagsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta uu kala kulmay maamulka iyo shacabka magaalada Dhuusamareeb waxaana uu sheegay in si aan loo kala harin oo sharaf iyo karaamo iyo walaalnimo iyo Soomaalinimo ku dheehantahay nagu soo dhaweeyo magaalada Dhuusamareeb waxaan u mahad celinayaa wafdigana soo dhaweeyay oo hogaaminayay madaxa xukuumadda ee dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan oo soo dhaweeyay iyo maamulka ahlu sunna wal jamaa oo dhamaantood maanta halkan ugu soo dhaweeyay iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole saraakiil mas'uuliyiin kale ee bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan markooda idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay Ilaahay idinka abaalmariyo marka xiga waxaan salaan diiran iyo hambaliyo idinkaga wadaa dadweynaha gobolka Banaadir ku nool oo salaan qiimo leh soo faray soo gaarsiiyay inta kadib munaasabada oo aan u nimid ayadoo laba munaasabad ay tahay midna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu imaanaya berri ayadoo loo imaanaya dhaqangalka heshiiskii ee maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wal jamaa iyo sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug ay ku kala saxiixdeen bishii December dhaqangalkiisa oo berri insha Allah ta'ala la daahfuri doono hadduu Ilaahna gaarsiiyo dhamaanteen waxay noo tahay sharaf maadaama kii hore aan goobjoog ka ahayn Maxamed Cabdi Wali Taaxow TV-ga Universal Dhuusamareeb